magaalada Muqdisho dhamaadka bisha barakweynihii hore ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaa sidoo kale qayb ka noqon doona ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaareyaal hore Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo sidoo kale Cabdi Faarax Shirdoon Saacid xubnahan iyo xubno kale oo siyaasiyiin ah oo ka mid yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena soo noqday madaxweynihii Koonfur Galbeed waxay iman doonaan magaalada Muqdisho iyagoo oo aan wadan afkaar midaysan oo siyaasi ah hase yeeshee dhammaantood waxay ka siman yihiin samaynta iyo curinta siyaasad ka dhan ah dawladda uu hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta badan xubnahan mucaaradka ah ayaa waxa saldhigooda u ahaa magaalada Nairobi halkaasi oo maalmihii ugu dambeysay ay ka wadeen xodxodasho iyo abaabul siyaasadeed hase yeeshee wararka la helayo waxay tilmaamayaan in dhinacyadan weli aysan yeelan dallad ay ku midaysan yihiin dadka la xaqiijiyay inay ku soo hormari doonaan Muqdisho waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo hadda saldhigiisu uu yahay magaalada Dooxa Farmaajo iyo dhinacyadan mucaaradka ah kuma midaysna in la sameeyo aragti iyo kudlad siyaasadeed oo ka dhana dawladda uu hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama rag siyaasadda hadda mucaaradka ah oo banaanka taagan iyo Farmaajo hore siyaasad ahaan isku diideen isku dayo la sameeyay ayaa wararku tilmaamayaan in lagu guuleysan waayo arrintaas Farmaajo oo hadda haysta taageero siyaasadeed oo xoog leh oo dhinaca bulshada ah waxay muujinaysaa in hadda dhinaciisa uu u taagan yahay hase yeeshee ramadaanka kadib uu qorsheynayo inuu yimaado Muqdisho halkaana uu ka bilaabi doono ololihiisa doorashada sanadka 2026 doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan magaalada Muqdisho waxaa jira garabyo kale oo siyaasadeed waxaa ka mid ah Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo hadda ah xildhibaan sidoo kalena hogaamiye xisbiga wadajir horeyna u soo noqday wasiir dawladihii ku meel gaarka ahaa ee soo maray Soomaaliya laba ra'iisul wasaare oo hore ayaa iman doona oo ay ka mid yihiin Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo siyaasadiisu hadda ay tahay mid aad u xoogan marka la fiiriyo ololaha iyo waliba dhaqaaqyada siyaasiga ah ee uu ka sameynayo magaalada Nairobi Saacid Shirdoon waxa la leeyahay waxa garabkiisa taagan siyaasiyiin culculus kuwaasi oo la filayo in xodxodashada siyaasadeed iyo kambeynada la filayo dalka inay ka dhacaan inay qayb ka noqdaan kuwaasi oo horey talada dalka wax ugu yeeshay wararka qaar waxay tilmaamayaan in siyaasiyiintan ay ka mid yihiin rag horey u soo maamulay gobolka Banaadir xubno laamaha amniga soo hogaamiyay iyo sidoo kale xubno ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya labadiisa gole iyo waliba siyaasiyiin kale oo hadda qayb ka ah ololihiisa doorashada Saacid waxa uu ka mid noqonayaa baa la leeyahay dadka aragtiyada siyaasadeed wata ee 2026 doorashooyinkan ku baratami doona dadka sidoo kale iman doona magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo isaga ah kaadir siyaasadeed oo weyn isla markaana hore u soo noqday ra'iisul wasaare laba jeer Umar Cabdirashiid Sharmaarke waxa uu leeyahay garabyo siyaasadeed oo ku xiran kuwaasi oo abaabul weyn la sameyn doona laakiin imaanshiyihiisa iyo damaciisa haddii uu Muqdisho ku soo bandhigo waxay culays siyaasadeed ku noqon doontaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo hadda Daacish la dagaalamaya hase yeeshee damaca hogaaminta la warinayo dhinaciisa inuu qayb ka yahay haddii labadooda ay ku tartamaan doorashooyinkan waxaa la filayaa in xildhibaano Puntland ka yimaada iyo waliba aragtida siyaasadda labadooda ay si gaar ah u wada saameyn doonto sidaas ayay ku doodayaan dadka barnaamijka Barrow Show la hadlay ee arrimaha siyaasadda taxliiliya sidoo kale dadka iman doona waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Gaas oo isna ka mid ah dadka waayidii ugu dambeysay Nairobi joogay ololahana hoos u waday isla markaana ka aragtida dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laakiin su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa arrimahan haddii hadda aanay jirin mucaarad midaysan oo aragtiyada ka midaysan suuragal ma tahay in la helo rag siyaasiyiin oo u dhigma Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
doorashooyinka soo socda si furan kula loolami kara isla markaana muujin kara miisaankooda siyaasadeed ee magaalada Muqdisho waa dooda ugu badan ee hadda fagaaraha siyaasadda Soomaaliya taala iyo waliba dib u karaar qaadashada siyaasadda ee la filayo bishan barakaysan ee Ramadaan kadib in magaalada Muqdisho ay yimaadaan su'aalo badan ayaa soo baxaya oo dul taagan xukuumadda danqaran iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre isku shaandhaynta maanta lagu sameeyo golaha wasiirada xubnaha cusub ee soo galay iyo kuwa xilalka loo kala bedelay ma ka hortagi doonaan muujadahan siyaasadeed ee mucaaradka ah ee hadda ku soo fool leh dad badan waxay qabaan arrimahaasi inaanay si fudud u dhici karin marka la fiiriyo mucaaradka siday u xoog badan yihiin afkaaraha siyaasadeed ee wataan dhaliilada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee u jeedanayaan oo meelo badan ah haddana dadka la isweydiinayo waxay tahay dhinacyadan ayaa la filayaa in aysan si dhaba ugu bareeri karin xaaladda iyo mucaaradada xooggan ee ka hor iman kara taasina waxay ku xiran tahay kalsoonida siyaasadeed ee qabaan iyo waliba sida afkaarahooda siyaasadeed ay uga eebin karaan dadka lagu loolamayo ee dowladda Soomaaliya iyo mucaaradku ay isku haystaan dhinaca kale marka la fiiriyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre maanta waxa uu la kulmay guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka iyo sohdimaha arrintan ayaa wax ama guddigan ayuu kala hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo dardargelintooda iyo in shacabka loo celiyo codaynta iyo awoodda intaba hase yeeshee dowladda inkastoo ay ku adkaysanayso inay dhacayaan doorashooyin qof iyo coda mucaaradka xamar imaanaya arrinta ugu ballaaran ay ka hortagayaan waxay tahay sidii loo heli lahaa doorasho loo dhan yahay oo hal dhinac loo wada aadayo iyadoo hadda guddigan ay ku eedaynayaan in dowladdu ay samaysatay isla markaana aragtida dowladda uu ka shaqeynayo waa sida xubnaha mucaaradka dhowr jeer oo hore ay ku doodeen haddana ay ku doodayaan su'aal baas halkan imaanaysa oo la isweydiinaya oo ah haddiiba xaaladdu ay sidan tahay mucaaradkuna dhankooda weli fadqalalo badan ay ka muuqato dowladdana la leeyahay dhinacyada hadda haysato dhaliisha mucaaradka ma ka hortagi doonaan waxaa la isweydiinaya waxay tahay doorasho noocee ah ayaa 2026 ka dhici karaysa waqtiga ayaa go'aamin doona iyo dhamaadka sanadkan soo dhawaada saaxiibayaal waa Cabdicasiis Barrow iyo qaybta hore barnaamijka Barrow Show waxaan idin leeyahay si aad macluumaad iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya geeska Afrika iyo bariga dhaxbaad u heshaan ku soo